markastoo laga adkaado hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab waxay ka aargoosataa shacabka ku sugan magaalada Laascaanood iyadoo in dhowr boqol oo kiiloomitir u jirta magaalada Laascaanood si isdaba joog ah magaalada uga soo duqeynaysa oo madaafiic uga soo ridaysa lana beegsanaysa isla markaana goobaha ay bulshadu ku badan yihiin sida goobaha caafimaadka oo kale masaajidda oo kale kafeteriyaha oo kale hudheelada cunnada iyo kuwa hurdada ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaan kaloo barnaamijka ku iftiimin doonaa maalinkii 12aad ay cibaadaystaan jamaahiirta SSC Allah inaga aqbalo iyo khasaarihii soo gaaray hooyada dhadiga ee dhashay shabaab waxaan kaloo barnaamijka ku kashifi doonaa hadduu Allah awood la idmo si aan horeyba idinku sheegay odayaashii uu gacan ku dhiigle Muuse Biixi u soo dirayay magaalada Laascaanood waatay isimadii dhulbahanta diideen balse gacan ku dhiigle Muuse odayaashaasi waa uu soo diraya ama Laascaanood iyo isimadaba ha ka heleen casuumaad ama haba la qaabilo ama hala diida hadii la rabo laakiin waa kuwii la soo diro oo yimaada magaalada ujeedka iyagoo aan la casuumin isamidii aysan ogolaanin odayaasha loo soo diraya maxay tahay sirtaasna waa fashilin doonaa waana idinka dabageen doonaa waxaan kaloo barnaamijka ku iftiimin doonaa xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre xalay waa uu hadlay madaxweynaha federaalkuna waa uu hadlay labaduba qodobo go'aamo ayay u soo jeediyeen Muuse Biixi hadduu go'aamada qaadan waayo maxaa u bannaan in ay sameeyaan magacaygu waa Hilaacsool channelkuna waa isla Hilaacsool waxaan idiin soo gudbiyaa warar sugan isla markaana xaqiiqda ku salaysan runtana raad ku leh fadlan si aad noola socoto akhbaaraadka u dambeeyay ee gobolada SSC channelka subscribe dhaho isla markaana gambaleelka u furo ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay hadlay hase ahaatee markasta aan ku hormaro markasta oo laga adkaado hooyadan dhadiga ah ee dhashay shabaab ee SNM waxay ka aargoosataa shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood iyadoo waliba ka soo duqeynaysa in u jirta dhowr boqol oo kiiloomitir waliba waxay eeganaysaa ama bartilmaameedsanaysaa goobaha shacabku ay ku badan yihiin sida masaajidda waanu aragnay masaajiday duqeeyeen oo kitaabtii Alle ay wada gubanayaan hudheelada cunnada kuwa hurdada oo kale kafeteriyaha oo kale waa ujeedo waa qaab waa taatikadii ay shabaab u dagaalanto weeye waa taatikada shabaab ay u dagaalanto waxoodu ma aha dagaal ma aha ee waa xasuuq baa loo oran karaa waana xasuuq shacab ee xasuuq ciidan ma aha marba haddii aysan waji ka waji jamaahiirta aysan dagaal ula geli karin nimankana waxay go'aansadeen qaabka ay shabaab u tababareen ila shabaab iyaga dhalay oo soo tababaray iyagana soo askumay qaabkii bay maanta u dagaalamayaan wuxuuduna waa mawtaqdoox bal fiidoogan ila yara daawada waa guri ay dadka ku dhacay haddana sax ku dhacay gurigan haddana sax ku dhacay guriga yaa hada شعب حكيم ده waad aragtaan waxay duqeyn ku wadaan markastoo laga adkaado ama laga gacan sareeyo magaalada Laascaanood xaqiiqna waxa ah in ay taasi tusaale u tahay in ay awoodoodii boqolkiiba boqol ay wiiqday maantana gacan ku dhiigle Muuse iyo jabhadiisuba aysan meesha waxba ku haynin waxa kale oo inoo soo socda oo aan barnaamijka ku iftiimin doonaa odayaashan Muuse Biixi iyo sirta ka dambaysa balse aan ka horeysiyo maalinkii 12aad ay jamaahiirta SSC cibaadeysato Allah inaga wada aqbalo magaalada Laascaanood hareeraheedo dhan waxa buuxiyay meedadka hooyada dhadiga ee dhashay shabaab sida aan ila sugan oo wararka aan ka helno ee noo xaqiijinayaan dhimashada xagoodu inay tahay 20 iyo 38 dhaawac taa waxa ka sii daran dhaawac walba ama meed walba oo ay leeyihiin waa ay ka cararaan maanta meedadkoodii waxay dhooban yihiin halkaas
waxaa kaloo ka daran nin walbana isagoo ordaya xabadu dhabarka ka dhacdaa la heli maayo hal nin oo iidoor ah oo xabadu shafka kaga taalo ninku hadday mar xabada shafka kaga taalo waa nin geesinimo u dhintay laakiin nin xabadu dhabarka iyo futada ay kaga daalo waa nin isagoo ordaya ku dhacday balse hal nin oo maanta darwiish ah oo jamaahiirta ka mid ah oo dhabarka xabad kaga taalla haba yaraatee ma jirto maanta meedkoodii baa halkaa wada waran madfacaas ay magaalada ku soo rideenna waxaa ku dhintay 11 shacab ah oo shacabkii reer Laascaanood ah ayaa ku dhimatay waana marka aan idin leeyahay waxay u dagaalamayaan ama taatikadii shabaab ayay u dagaalamayaan ujeedkoodu ma aha ciidan iska celiya waayo karti iyo awood ay maanta jamaahiirta loo hor istaagaan ama ka weji ay ula dagaalamaan orta uma harin oo awoodoodii waa la wiiqay kaliya waxay rabaan in ay shacabka xasuuqaan wixii ay koonfurta Soomaaliya ka wadeen ay ka wadaan waxaan kaloo hore u soo sheegnay in gacan ku dhiigle Muuse Biixi uu u soo diri doono magaalada Laascaanood odayaal uu ku tilmaamay in ay erga yihiin balse odayaashaasi oo la diiday isimadii dhulbahantana ay yiraahdeen wax wada hadal oo odayna dhex mari kara iyo door ka socda ma jirto inta gacan ku dhiigle Muuse Biixi ciidankiisa uu og dhaafinayo horena waxaan idinku sheegay Muuse intuusan hadlin in aanu anagu warbixinta ka hor helno Muuse waxa uu qorsheynayaa odayaashaas ama casuumaad ah heleen ama hal yaan loo ogolaan in la soo diro laba shay baan loo soo dirayaa waa ta koowaad odayaashaasi waxay rabaan marka ay soo dhaafaan ciidankoodu meesha ay joogaan in ay lulaan calan cad ama maracad ay yiraahdaan nabad baanu wadnaa kadib Muuse wuxuu amar ku bixiyay odayaasha qayb kamid in ay toogtaan waxa tooganaya waa ciidanka gacan ku dhiigle Muuse Biixi si uu iskaga hor keeno ama uu ku helo ama uu ku kasbado iidoor oo dhan uu iidoor ka dhaadhiciyo waayo maanta waxa meesha ku dhimanaya waa la wada ogyahay reeray u badan yihiin reero ayay u badan yihiin in uu iidoor maanta ku qanciyo indhaha caalamkana uu ku qanciyo meesha la yiraahdo Laascaanood argagixisaa joogta war iidoorow dhulbahantana waa kuwa ismadiini laynaya shacabka ku dhaqan Hargeysa iyo Burcana ay ku jeestaan maatada la nool ay ku jeestaan qodobka koowaad waa qodobka labaad oo odayaashaas haday gudaha magaalada Laascaanood soo galaan ay isimada hor istaagaana haliga gaarsiiyay isimada yaan gacan lagu salaamin yaan gacan loo taagin oo lagu salaamin gacanta lagu salaamayo sixir ayuu wadataa waana xaqiiq waana war sugan garaad walba marka uu odaygaasi salaamo isimadeena waxa ku kala dhacaya waxa la yiraahdaa firir inuu nin walba ciidankiisa ka haysto la baxo waayo ninka gacan ku dhiigle Muuse Biixi waxa madaxtooyada u jooga 3 falalow ba madaxtooyada u dhex fadhiya oo la taliya la ah isimada dhulbaanta waxaan leeyahay ka feejignaada wax wada hadal ah oo dhicaya haba yaraatee horta ma jirto gacan ku dhiigle Muuse Biixi waa nin wareersan waa nin dhiigii ummadda Soomaaliyeed maskaxdiisii bedeshay waa nin isagoo dhan jah wareersan war haddii lagu yiri ilaa aad ciidankaaga og dhaafiso cid wada hadal kula yeelanaysa male war ma quusatid miya da inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ma quusatid miya dhinaca kale xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay hadlay oo qodobo u soo jeediyay Muuse Biixi hadduu qodobada ku dhaqmi waayo duqeyntaana uu joojin waayo maxaa u bannaan hal mid ayaa u bannaan aniga waxaad iigu imanaysaa runtaad iigu imanaysaa wax kale aad iigu imanaysaa ma jirto hal mid ayaa u bannaan halka mid ee u bannaan muxuu yahay
in ay cunaqabateen dhinac walba ka saaraan beesha caalamkana ay tusaan argagixisadu cidda ay tahay beesha caalamka ay tusaan Soomaaliya cidda ay ka degi la'dahay koonfurta iyo waqooyiba qayb ka mid ah cidda ay ka degi la'dahay oo baabiin shacab ku wada in ay yihiin jabhadda dhadigaha ee dhashay shabaab iyo gacan ku dhiigle Muuse Biixi waayo taa nagama qarsoona waanu wada ogsoonnahay dhammaanteen waanu wada ogsoonnahay cid aan maanta ay ka qarsoon tahay shabaab in ay u shaqayso Somaliland haba yaraatay ma jirto waa kuwa galgala ka dagaalama bari saadka iyo labiska iyo cunada waxa looga qaadaa burco dhinaca sanaag baa la mariyaa waa kuwa buuraha galgala ka dagaalama kuwa koonfurta Soomaaliya ka dagaalamana madaxdooda xaasaskooda Hargeysa degan yihiin waxayna wataa baasaboor Jabuutiyaana garoonka magaalada Hargeysa inay ka soo degaan cid aan taa ogsoonayn haba yaraatay horta ma jirto war waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waa hilaac soo loo idin leh is aragti dambe oo xiiso leh